kulanti wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaana kamid ah Sheekh Shaakir iyo saraakiil sarsare oo ahlu sunnah oo ka baxsaday dhuusamareeb gaarayna Garowe si mar kale ay weerar ugu soo qaadaan dhuusamareeb ciidamada danab oo al-shabaab badan ku dilay jilib iyo bu'aale kadib dagaal toos ah iyo duqeymo halkaasi ay ka fuliyeen farmaajo Uhuru Kenyatta qadka telefoonka uga wada hadlay xiisada ka taagan xuduudda labada dal dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa al-shabaab oo ka qarxay duleedka Beledweyne Kenya iyo Cabdirashiid Janan oo weerar ku soo ah balad xaawo maxay ka wada hadleen qoorqoor iyo saraakiishii ciidamadii ay dhawaan wareejiyeen ahlu sunno xog ayaan idinkaga hayaa intaad maqasheen waxay ahaayeen daawadayaal qodobada ugu waaweyn wararka caalamka taariikhdu waxay tahay 5 bisha 3 Maarso sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno magaalada Dhuusamareeb kadib markii hore magaalada Garowe u gaaray hogaamiyaha ahlu sunno Macalin Maxamuud ayaa waxa lagu soo waramayaa in sidoo kale ay maanta halkaasi gaareen madaxdii hore kooxdaasi wararka ayaa sheegay in Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Cabdisamed Macalin Maxamuud oo uu dhalay hogaamiyaha ahlu sunno ay maanta tageen Garowe safarka ayaa waxa ku weeliyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo kamid ahaa 20kii xildhibaan ee kooxdaasi ay hore ugu darsatay baarlamaanka sida aan xogta ku helnay wafdiga oo ka yimid magaalada Dhuusamareeb ayaa xariiq ku hiday magaalada Gaalkacyo halkaasi oo safar dhulka ah maanta ay kaga anbaxeen kuna gaarin Garowe sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiinta tirsan Puntland hogaamiyaha guud ee ahlu sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo maalmahan ku sugnaa Garowe ayaa la hadal hayaa inuu ku wajahan yahay magaalada Jidda si kastaba Sacuudi Carabiya oo hadda soo rogtay xayiraado la xiriira dadka ajnabiga ah imaanaya dalkaas sabab la xiriira cudurka coronavirus ayaa suurtagal ay tahay inay baajisay socdaalkii macalinka hogaanka ururka ahlu sunno in ka badan 12 sanadood ka talinayay gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa dhawaan isku dhiibay dawladda federaalka kadib markii looga adkaaday dagaal halkaas ku dhex maray iyaga iyo ciidamada dawladda federaalka madaxda ahlu sunno looga awood roonaaday siyaasadda Galmudug ayaa u muuqda haatan inay gabaad siyaasadeed ka dhiganayaan Puntland oo horey ugu sii joogay hogaamiyaha ahlu sunno Macalin Maxamuud oo maamulka Puntland ka baajiyay sida la sheegay safar dibadda ah oo ku bixi lahaa maamulka Puntland ayaa ahlu sunno ku buurinay sida ay xogan ugu soo gaarayaan inay u tababaraan ciidamo kale iyagoo diyaarinaya xero tababar oo looga furo deegaanka Heemo oo Gaalkacyo u jirta 35 kiiloomitir oo ka arrimisa Puntland si ay mar kale weerar ugu soo qaadaan magaalada Dhuusamareeb oo dawladda federaalka ay xoog kula wareegtay markaana Jubbaland xalay saqdhexe ayaa duqeymo iyo dagaal toos ah waxa lagu qaaday xarumaha ay dagaalamayaasha al-shabaab ku leeyihiin degmooyinka Jilib iyo Bu'aale oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe sida ay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda u sheegeen warbaahinta duqeymaha ayaa waxa barbar socday dagaal toos ah oo ay fuliyeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya waxaana la soo sheegayaa in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac leh iyadoo nolosha lagu qabtay xubnaha al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha goobaha la duqeeyay ayaa ahaa xarumaha ay degan yihiin al-shabaab waxaana mid ka mid ah ku diyaarsanaa ciidamada ay shabaab u diyaariyeen in ay ku qabsadaan degmada Baardheer ee gobolka Gedo sidoo kale xarun duqeyn iyo dagaal toos ah laga fuliyay oo ku taala Bu'aale ayaa la sheegay in lagu qabtay xubno ka tirsan al-shabaab sarasmiya looma uga khasaaraha balse waxay saraakiishu sheegeen in ay ku dileen tubaniya al-shabaab ah qaarna ay nolosha ku qabteen dadka deegaanka ayaa sheegay in xalay saqdhexe ay maqlayeen dhawqa madaafiic culus iyo rasaas toos ah oo la isweydaarsanayo wali shabaab arintani kama hadal hase yeeshee waxaa muddooyinkii dambe si joogto ah ay duqeymo uga dhacayeen goobaha ay joogaan al-shabaab kuna yaala koonfurta ee Soomaaliya haba ugu badnaadaan ee gobolada Jubbada Hoose iyo Shabeellada Hoose madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa qadka telefoonka uga wada hadlay xiisada ka taagan xuduudda labada dal madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo qadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isla gartay ahmiyadda ay leedahay si wadajir ah labada dal ay uga wada shaqeeyaan sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaan xasiloonida gobolka
farmaajo iyo Kenyatta ayaa adkeeyay in amniga labada dal uu yahay mid isku xiran loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfaham darro. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wada fadhiistaan guddiyo ka socda Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee labada dal iyo labada dad u dhaxeeya. wada hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli shalay dawladda Kenya ay eedeyn u jeedisay dawladda Soomaaliya iyadoo ku eedeysay in ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Gedo ay ku soo xadgudbeen jiritaanka xukuumadda Kenyatta. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidani u qornaa. waxaa la sheegayaa in Kenya iyo Cabdirashiid Janan ay weerar ku soo yihiin magaalada Balad Xaawo. dawladda Kenya oo cadaadis xoog leh kala kulmaysa Soomaalida degta gobolka Waqooyi Bari ee dalkaas gaar ahaan siyaasiyiinta Mandheera ayaa bilowday qorshe ay dalkeeda uga saarayso wasiir Janan. Kenya ayaa waxay u diyaar garowday in ciidankeeda ay dagaalka ka caawiyaan kuwa Jubbaland isla markaana wasiir Janan loo qabto degmada Balad Xaawo ku taala xuduudda labada dal si ogaatay warbaahinta. xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegay in hadalkii madaxweyne Kenyatta ahaa in Soomaaliya ay ku soo xadgudubtay xuduudda Kenya oo ahaa mid lagu baneysanayay howlgal ay ka qayb qaataan ciidanka Kenya si wasiir Janan gudaha dalkiisa lagu sameeyo deegaan lagula ilaaliyo taasoo meesha ka saari karta qayladhaanta xildhibaanada Kenya. shacabka ku nool Balad Xaawo iyo Ceelwaaq ayaa ka cabsi qaba in labadaasi magaalo midkood ay martigeliso dagaal kale oo ka dhaca gobolka Gedo. labadii bishan ayaa dagaal culus waxa uu ka dhacay Balad Xaawo waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh iyadoo markii dambe lagu jabiyay ciidanka Cabdirashiid Janan oo u cararay dhanka Mandheera. dhanka kale ciidamo gurmud u ahaa Cabdirashiid Janan kana yimid Dhobley ayaa gaaray Mandheera. ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa saacadihii la soo dhaafay ka gudbay deegaano ka tirsan gudaha Kenya iyagoo ku sii jeeda Balad Xaawo maalmo ka hor ay dagaalo culus ka dhaceen. sida wararku ay sheegayaan ciidamada Jubbaland ka tirsan oo ka yimid dhanka degmada Ceelwaaq ayaa gudaha u galay Kenya iyagoo ka gudbay xadka waxaana qorshaha ciidamadeeni u ahaa inay dhanka Mandheera ka weeraraan degmada Balad Xaawo. sawirro iyo muuqaalo la soo galiyay baraha bulshada ayaa muujinaya tobaneeyo gaadiidka dagaalka ah iyo fara badan oo ka soo gudbaya tuulada Wargaduud oo u dhaxaysa Mandheera iyo Ceelwaaq. gudoomiyaha gobolka Mandheera Cali Ruubo ayaa isna xaqiijiyay in ciidamadan ka tirsan Jubbaland ay gudaha u galeen Mandheera iyagoo soo maray wadada Buula Jamhuuriya. waxa uu sheegay in tani khatar weyn ku tahay dadka Kenyaanka ah ee ku nool Mandheera waxaana uu ugu baaqay dawladda Kenya inay yareyso dhaqdhaqaaqyada xawaaraha ku socda keeni karana halis ku ah nolosha dad badan. labadii bishan ay ahayd markii dagaal aan waxba la isku reeban oo ka dhacay xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. markaana Hiiraan dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa ka qaraxay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen ila deegaanka ah. ciidamada dawladda ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka Bitaale oo dhaca galbeedka Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan halkaas oo ay gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalantay gudaha Soomaaliya. sida dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta waxaa la maqlayaa dhawaaqa rasaas culus oo ay isdhaafsanayaan ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab. dagaalka waxaa ka dhashay khasaare soo gargaaray dhinacyadii dagaalamay inkastoo aan si rasmi ah loo helin inta loo yahay khasaaraha. ciidamo gurmud u ah dawladda Soomaaliya ayaa goor ka ambabaxay Beledweyne waxaana la filayaa inay ku biiraan dagaalka xooggan u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo Shabaab. wararkii ugu dambeeyay halkaas naga soo gaaray ayaa sheegaya in dagaalku uu istaagay Al-Shabaabna laga buriyay deegaankii ay ku sugnaayeen. markaana Galmudug maxay ka wada hadleen qoorqoor iyo saraakiishii ciidamadii dhawaan uu wareejiyay hogaamiyaha Al-Sunna. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor ayaa xalay magaalada Dhuusamareeb kula kulmay saraakiishii ciidamada Al-Sunna ee sabtidii wareejiyay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxii xukuumadda Galmudug. madaxweynaha Galmudug ayaa waxa kulanka ku welinayay Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame taliyaha guutada 15aad qaybta 22aad ee ciidanka xoogga. kulanka oo looga hadlayay kaalinta ciidamadan ay ka qaadan karaan hawsha sugidda ammaanka iyo la dagaalanka Al-Shabaab iyo arrimo kale. saraakiisha oo ka kooban dhammaan laamaha ammaanka ciidamada qalabka sida ayaa ballan qaaday inay diyaar u yihiin adeecida madaxda Galmudug iyo gudashada waajibaadka qaran ee laga sugayo.
qoraal kooban oo ka soo baxay taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga ayaa lagu sheegay in kulanka looga hadlay doorka saraakiisha ahlusunna kaga aadan arrimaha amniga iyo la dagaalanka ururka al-shabaab. madaxweyne qoorqoor ayaa dhankiisa saraakiishan ku booriyay inay sii wadaan kaalinta lagu sugayo ee ah ka qayb ahaanta dowladnimada iyo kamera dhalinta yoolka ay si wada jir ah looga saaro deegaanada ku jira al-shabaab. xoogagga ahlusunna ayaa lagu xasuustaa dagaaladii qaraaraa ee shabaabku kula galeen qaybo ka mid ah gobolada Galgaduud iyo Hiiraan iyagoona ka safeeyay dhul ballaaran oo ay hore uga arriminayeen. waa naga intaa saaxiibayaal qodobadii aad nagala socoteen.